maxay ku kala duwan yihiin ardayga gala kaalinta koowaad iyo ardayga gala kaalinta hoose? maxay ku kala duwan yihiin ardayga aan caadiga ahayn iyo ardayga caadiga ah? waan ogahay inaad doonaysid inaad ka gashid imtixaan kasta kaalinta koowaad, soo sidaas ma ahan. haddaba sideed ku noqonaysaa arday ka keena imtixaanka darajada ugu sareysa, darajada koowaad؟ آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. السلام عليكم، وأنتم mahadsantahay daawashada videogan. kusoo dhawow nolol cusub. magacaygu waa Yuusuf Sakeen. ma jiro arday aan doonaynin inuu iskuulka ama jaamacadda ka galo kaalinta koowaad. soo sidaas ma aha, waa sidaas. arday kasta waa riyadiisa midaas, waa waxa uu u rafaadayo, u dadaalayo siduu u noqdo ardayga koowaad ee iskuulka ama jaamacadda. haddaba ma jiraan tallaabooyin haddii ardaygu uu sameeyo uu ku noqonayo arday gala kaalinta koowaad? haa, ii ogolow maanta inaan kula wadaago 6 tallaabo oo cajiib ah oo kaa dhigaya inaad imtixaan kasta aad ka keentid darajada koowaad. waa haddii aad ku socotid oona raacdid tallaabooyinkan aan maanta kula wadaagi doono. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka? tallaabada koowaad, joogto ka dhig wax akhriska. wax akhrisku waa inuu kuu noqdaa wax aad maalin walba samaysid. ma ahan inaad soo qaadid buugga maadada marka imtixaanku uu soo dhawaado usbuuc ama 2 usbuuc ka harsan yahay oo kaliya. may wax akhrisku waa inaad ka dhigataa caado joogto aad samaysid maalin walba. buugaagta aad ku qaadatid iskuulka ama jaamacadda waa inaad u akhrisaa si maalinle ah. maalin kasta waa inaad waqti gelisaa oo aad wax ka akhrisaa. ardayga kaalinta koowaad gala waa ardayga wax akhriska ka dhigta jacaylkiisa nolosha. waayo firi, wax akhrisku aad akhrinaysid maadooyinkan waa qaabka keliya ee aad ku noqonaysid kaalinta koowaad. sidaas ma ahan, waa sidaas. haddaba waa inaad isjeclaysiisaa. ma jeclid, waa dhibsanaysaa. may aniga waxaan fiirinayaa mustaqbalkayga, waxaan fiirinayaa noloshayda hadhow. haddaba wax akhris la-aan ma gaarayo meeshaas. haddaba inaan jeclaadaa, waan ku qasbana inaan jeclaado. hadda waa inaan isjeclaysiya. hataa haddii aan anigu jeclayn, waa inaan ka dhiga nafsadeyda inay jeclaato wax akhriska. haddaba jeclo wax akhriska, ka dhigo wax maalinle aad u samaysid. ka akhri maadooyinka aad soo qaadatid maalin kasta. qayb ka akhri, wax ka akhri. mar walba iskuulka ama jaamacadda aad ka timaadid, galabtii, habeenkii waqti qaado aad ku akhrinaysid maado kasta. ardayga kaalinta koowaad gala waa ardayga si joogto ah wax u akhriya oona ka dhiga wax akhriska jacaylka noloshiisa. midda labaad, ogow waxyaabaha ku mashquulinaya. waa run, ma jiro qof aan mashquul ahayn, soo maahan. dhammaanteena qof kasta waa mashquul. balse fiiri, su-aashu waxay tahay, maxaad ku mashquulsan tahay? ardayga caadiga ah ee keena darajooyinka hoose iyo ardayga gala kaalinta koowaad, mid kasta waa mashquul. balse waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ku kala mashquulsan yihiin. ardayga gala kaalinta koowaad wuxuu ku mashquulsan yahay waxyaabo faa'iido u leh, waxyaabo waxtar u leh, waxyaabo u horseedaya guushiisa waxbarasho ama guusheeda waxbarasho. halka ardaygan kale uu ku mashquulsan yahay waxyaabo maalayacni ah, waxyaabo siyaasad, sheeko, filmaan, waxyaabo aan waxba ka qayb qaadanaynin guushiisa waxbarasho. haddaba waa inaad ogaataa waxaad ku mashquulsan tahay. maxaa ku mashquulinaya? facebooka markaa gashid, maxaad ku mashquulsaa inta badan? telefishinka, youtube-ka. waxaan oo dhan waa inaad ogaataa waxyaaba ku mashquulinaya, kadibna iska xirtaa. haddiiba aadan waxba ka faa'iidaynin, waa inaad iska xirtaa oo aad
gaar ahaan marka imtixaanaadka waqtigan oo kale la gaaro waa inaad ka takhalustaa oo aad iska xirtaa telefishinka computerka waxyaabahaas oo dhan mobilekaaga waa inaad ka fogaataa waayo hadda adiga hadafkaagu waa mid kale hadafkaagu wuxuu yahay sidii aad u keeni lahayd kaalinta koowaad darajooyin sarsare soo maahan haddaba ogow waxyaabaha ku mashquulinaya marka hore kadibna ka takhallus kadibna ka fogow iska xir iska yare sidaas ayaad ku noqonaysaa kaalinta koowaad ogow waxyaabaha ku mashquuliya kadibna ka fogow ee xariga u jar midda saddexaad kala qaybi arrimahaaga qofka ay arrimihiisa oo dhan howlihiisa oo dhan ay isku mid yihiin meel ma gaarayo mana noqonayo arday gala kaalinta koowaad haddaba waxaad u baahan tahay in arrimahaaga ku fikirtid la fadhiiso nafsadaada dib u fiiri howlahan aad samaynaysid waxyaabaha aad samaynaysid ma waxaad samaynaysaa waxyaabo muhiim ku ah mise waxaad samaynaysaa waxyaabo aan muhiim ku ahayn fiiri howlaha aynu samayno waxaa ku jira kuwo muhiim ah waxaa ku jira kuwo ay khasab tahay inaynu samayno waxaa ku jira sidoo kale kuwo ay khasab tahay inaynu ka fogaano soo ma jeedid haddaba kala bixi adiga inaan gurigayga fadhiisto oo aan buugagtayda akhriyo oo aan u diyaar garoobo imtixaanka waa arrin muhiim ah waa arrin ka qayb qaadanaysa guushayda horumarkayga mustaqbalkayga balse inaan banaanka iska aado maalin walba waan saaxiibadayda la soo baashaalo kama qayb qaadanayso horumarkayga kama qayb qaadanayso inaan darajo sareysa ka keeno imtixaanka kala saar arrimahaaga kala bixi arrimahaaga kala shaandhe arrimahaaga howlaha samaysid u kala bixi kuwa kuu muhiimsan iyo kuwa aan kuu muhiimsanayn samee kuwa kuu muhiimsan kuwa kalena ka fogow kuwa waqtiga kaa dilaya ka fogow kuwaas waxay ahaadaanba waa inaad hadda diiradda saartaa oo keliya sidii aad ku noqon lahayd ardayga koowaad ee fasalkaaga ama jaamacadaada midda afaraad ha ku raali noqonin darajo hooseysa marka horeba hadda waa inaad maskaxdaada gashataa oonan go-aan ku qaadataa inaadan marnaba ku raali noqonaynin darajo liidata darajo hooseysa haddaba u qorshayso oo ka dhig hamigaaga iyo hankaaga midaad u sareeya firi qofkeena marka horeba u diyaar garoobo oo nafsadiisa u diyaariyo inuu noqdo kaalinta koowaad oosan ku raali noqonaynin kaalimaha hoose markaasi hankiisa wuxuu noqonayaa mid aad u sareeya kuma mashquulayo waxyaabaha waqtigiisa dila kuma mashquulayo waxyaabahan u horseedaynin guusha waayo wuxuu leeyahay han sare hankaaga kor u qaad si ay guushaadana kor ugu noqoto way isku xiran yihiin fiiri qofkan hankiisa uu iska hooseeyo ee ku raali noqonaya darajooyinka yaryar muxuu isku dhibayaa muxuu dadaal badan dheeri ah u samaynayaa waayo aniga waxaan diyaar u ahay darajada 2, 3, 4 maba kala jecli muhiimadeedu waxay tahay inaan ku baaso waxaan rabaa oo kaliya inaan imtixaanka ku baaso may hadheendaas waxaan rabaa inaan noqdo ardayga ugu sareeya fasalkayga ama jaamacadayda soo jeedid waa inaad saas hadafkaaga marka hore sareysid firi qofkeen waxay ku xiran tahay guushiisu hadba meesha uu isdhigo asaga adiga maxaad doonaysaa inaad noqotid haddii aad doonaysid darajo sareysa kuma raali noqonaysid wax darajadaasi ka hooseeya aamin waa midaas waxaa lagu kala tegay waa intaas oo kaliya qofkan wuxuu raali ku noqonayaa waxyaabaha iska hooseeya darajooyin inuu iska baaso oo kale ayuu rabaa balse adiga waxaad rabtaa kaalinta koowaad si aad kaalinta koowaad u gashidna waxaad u baahan tahay dadaal dheeri ah hurdo la-aan badan soo ma ahan haddaba kuma raali noqonaysid waxyaabaha yaryarka ah kuma raali noqonaysid waxyaabaha waqtigaa kaa mashquuliya kuma raali noqonaysid waxyaabaha aan qiimaha lahayn balse waxaad diyaar u noqonaysaa inaad samaysid waxyaabaha ku horseedaya guushaada waxyaabaha kaa dhigaya inaad noqotid kaalinta koowaad hankaaga kor u qaad ha ku raali noqonin darajo hooseysa ee marka horeba haddaba u diyaar garow inaad gashid kaalinta koowaad insha Allah waad galaysaa midda shanaad
dib u dhig raaxadaada waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. kadib markii aan si fiican u fiiriyey ardayga noqda kaalinta koowaad iyo ardayga ku raali noqda inuu iska baaso ardayga caadiga ah iyo ardayga aan caadiga ahayn, waxaan ogaaday inay tahay ardayga gala kaalinta koowaad, ardayga aan ku raali noqonin waxyaabaha yaryarka ah, darajooyinka hooseeya, waa ardayga dib u dhigta raaxada. halka ardaygan kale uu soo horumarsanayo raaxada. hadda firi, haddii aad doonaysid inaad keentid darajo sareysa, inaad hadhow marka magacaaga la soo dejiyo aad si fiican u farxadid, waa inaad hadda ku raali noqotaa xanuunka. maxaa ula jeedaa xanuunka? qofkeena inuu wax akhriyo waa xanuun, inuu hurdada yareeyo waa xanuun, inuu ka joogsado raacitaanka iyo la bixitaanka saaxiibadiisa waa xanuun. balse adiga hadda ayaad raali ku noqonaysaa xanuunka, waxaad isku diyaarinaysaa raaxada ku sugaysa. raaxadaasna waa marka magacaaga la soo dhajiyo la yidhahdo hebel mase heblaayo waxay gashay kaalinta koowaad. soo ma aha? waa sidaas. halka saaxiibkeena kale uu hadda soo horumarsanayo raaxada, oona ku raali noqonayo inuu hadda iska hurdo in badan, inuu hadda saaxiibadiisa la baxo, inuu hadda waxba akhrinin. waayo nafsadiisa sidaas ayay jeceshahay, nafsadiisa waxay jeceshahay ayuuna u samaynayaa. balse saaxiibkeena kaalinta koowaad, saaxiibkeena aan caadiga ahayn, nafsadiisa hadda uma samaynayo waxyaabahay jeceshahay, hadda ma siinayo raaxada ay hadda doonayso. dib ayuu dhiganayaa si uu hadhow raaxaysto, si uu hadhow marka uu magaciisa arko uu u farxo. raaxada dhabta ahna waa midaas. dib u dhig raaxadaada hadda si aad hadhow u raaxaysatid. hadda u dulqaado xanuunka, u dulqaado rafaadka, u dulqaado hurdo la-aanta, u dulqaado wax akhriska, u dulqaado inaadan waqti aadan helaynin aad kula baxdid saaxiibadaada, la soo sheekaysatid, iska soo baashaysid. u dulqaado hadda. waxaan ku damana qaadayaa inaad hadhow qosli doontid oona farxi doontid. midda lixaad, waqti u dhaxaysii aad ay muhiim u tahay. haddii aad akhrinaysid maadada tusaale ahaan 3 saacadood, waa inaadan ka dhigin 3 saacadood oo isku xigta. waa inaad u dhaxaysiisaa 30 daqiiqaba 5 daqiiqo oo birrif ah, 5 daqiiqo oo break ah oo aad ku nasanaysid wax yar. firi, haddii aad rabtid macluumaadka aad akhrinaysid inay maskaxdaada ku raagaan, inay hadhow maskaxdaada ku soo celiso macluumaadkaas marka imtixaanka u fadhiisatid, waa in aad waqti gelisaa saacadaha aad wax akhrinaysid. aad ay muhiim u tahay. maskaxdeenu way daalaysaa marka aad wax akhrinaysid maanta oo dhan 3 saacadood isku xigta. mid ayaa gelaysa, mid ayaa ka baxaysa. wax xasuusanaysaa, waxna ma xasuusanaysid. waxaad weydiinaysaa mar walba markaa imtixaan ku fadhiisto, waa iloowa su'aalihii, jawaabihii waa iloowa, maxaan sameeyaa? waad iloowaysa sababtoo ah waxaad wax akhrinaysay 3 saacadood isku xigta. macluumaadkii wax waad xasuustaa, waxna ma xasuusatid. si maskaxdaada macluumaadka kugu keydiso hadhow maalinta imtixaanka, waa inaad break dhexdooda gelisaa mar walba wax akhrinaysid. nus saac wax akhri, 5 daqiiqo qaado, wax yar naso, kadibna kusoo noqo meesha ka wada hawsha. sidaa markaad ku samaysid 3 saacadood, markaasaad ku samaysid nus saac aad wax akhrisid, kadibna 5 daqiiqo oo break ah, kadibna kusoo noqotid meesha kasii wadi ilaa 3 saac. 3 saac ayaad wax akhrinaysaa, bal 3 saacadood isku xigta wax ma akhrinaysid. maskaxdaada si ay macluumaadka u qabato, macluumaadka una keydiso ayaa samaynaysaa. hadda soo jeedid sidaas samee, waxaad arki doontaa inaad si fiican u fahantay maadada. sidoo kale waxaad arki doontaa hadhow markaa imtixaanka u fadhiisatid inaad si fudud uga jawaabtid su'aalaha oo dhan. waayo maskaxdaada wax walba meesha la rabay ayay dhigtay. wax isku dhex darsamay ma jiraan, wax isku dhex yaacay ma jiraan. qaabkaas waxa u akhri markaad wax akhrinaysid. waxaan kuu damaana qaadayaa inaad noqonaysid arday gala
kaalinta koowaad. haddaba intaan waa 6 tallaabo oo ku damaana qaadi doonta inaad imtixaan walba ka gashid kaalinta koowaad oona noqotid ardayga ugu horeeya fasalkaaga ama jaamacadaada. insha Allah videoga soo socda waxaynu uga hadli doonaa khaladaadka ugu waaweyn ee aynu samayno maalinta imtixaanka. haddaba inta laga gaarayo videoga soo socda waxaan kaaga tegayaa mar walba ku noolow nolol farxad leh, nolol jacayl leh, nolol cusub. aad ayaad u mahadsantahay. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى